Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Mowduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa saddexda nin ee ugu dheer dunida. Ninka koowaad, Sultan Kosen, oo u dhashay dalka Turkiga sanadkii 1982, wuxuu haystaa rikoorka Guinness World Record ee ninka ugu dheer dunida ee nool. Dhererkiisu waa 251 sentimitir, 8 feet iyo 2.8 inji. Kosen wuxuu la nool yahay xaalad caafimaad oo la yiraahdo gigantism, taasoo keentay in jirkiisu sii koro xitaa marka dadka kale ay joojiyaan koritaanka jirka. Sanadkii 2010, wuxuu helay daawooyin si loo joojiyo koritaanka jirkiisa xad-dhaafka ah. Ninka labaad, Brahim Taqiullah, oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco balse hadda degan France, wuxuu dhererkiisu yahay 246 sentimitir, 8 feet iyo 97 inch. Wuxuu sidoo kale horay u haystay rikoorka ninka leh lugaha ugu waaweyn adduunka. Taqiullah wuxuu la nool yahay xaalad la mid ah midda Sultan Kosen, taasoo sababay koritaanka xad-dhaafka ah. Ninka saddexaad, Mortaza Merzad, oo u dhashay dalka Iiraan sanadkii 1997, wuxuu dhererkiisu yahay 245 sentimitir, 8 feet iyo 85 inji. Wuxuuna caan ku yahay inuu yahay ciyaaryahanka ugu dheer ee Paralympics-ka, isagoo ka tirsan xulka qaranka Iiraan ee kubadda laliska fadhiga. Merzad wuxuu la nool yahay xaalad caafimaad oo keentay in mid ka mid ah lugihiisa uu ka gaabiyo, taas oo sababtay in uu yeesho dherer aan caadi ahayn. Nimankan waxay la nool yihiin xaalado caafimaad oo gaar ah oo keentay koritaanka xad-dhaafka ah, waxaana ay la nool yihiin caqabado nololeed oo ay ka mid yihiin helitaanka dhar ku habboon, gaadiid ku filan, iyo qalab nololeed oo kale.